بسم الله الرحمن الرحيم واسديد tobanka bisha November 2025 ku soo dhawaada qodobada wararkeena caalamka maanta ee ugu waaweyn dawladda dalka Turkiga ayaa waxa ay ka dhawaajisay mowqif qarsoodi ah isla markaasna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa waxa uu ku dhawaaqay kulan walba oo ay la yeeshaan dawladda Mareykanka in ay kala hadlaan arrimo ku saabsan Soomaaliya iyo Suuriya maxay tahay arintani ay kala hadlaan Mareykanka ee labadani dal ku saabsan waa maxay cilaaqaadka aan la ogeyn ee dawladahani ay ka leedahay dawladda dalka Turkiga sidoo kale warkeena waxa daawad doontaan gantaalo casriya oo aad u dheereeya ayay Eritrea kala timid Ruushka iyo waliba dalkaasi Iran Ethiopia iyo Eritrea oo isku bira lisanaya xaaladuna waxa ay u muuqataa in saacad walba ay qarxi karto maxaa ka jira in 40 degmo oo gobolka Tigray lagu magacaabo ee dalka Ethiopia ay dawladda dalkaasi Eritrea gacanta ku dhigtay Ethiopia maxay kaga jawaabtay arintani ayaynu fiirin doonaa sidoo kale qodobka ugu dambeeya ee warka maanta waxa uu noqon doonaa kadib qaraarkii ciidamada lagu geynayay dhulka Marinka Gaza oo shalay ay ansixiyeen qaramada midoobay ama xalay habeennimadii waxa muuqanaysa in Soomaaliya markii labaad ay ku horkuftay caalamka islaamka Soomaaliya maxay ku bedelatay ansixinta qaraarkani oo barkale ay ka soo muuqatay marka lagu daro cunqabatayntii Iran lagu soo rogay oo Soomaaliya laba gacmood ay u taagtay maxaa ku qoran qaraarkani ayaynu fiirin doonaa wararka la raaci doona YouTube Facebook meeshaad igala socoto muuqaalka like share garay asxaabteen YouTube fadlan channelka soo raaca asxaabteen Facebook muuqaalka share garay oo meel fog gaarsiiyay baad ma santiin in guudna kala qodobka koowaad ee warkeena maanta waxa uu noqon doona dagaal adag ayaa laga baqayaa in fooda ay isgeliyaan Ethiopia iyo Eritrea kaasi oo la filayo inuu markani ka dhaco dhinaca gobolka Tigreega waana gobolka Tigreega iyo waliba xukuumadda Abiy Ahmed oo faray isku taagtaag xoogani uu ka dhaxeeyo toddobaadkani iyadoo oo marar kala duwan la sheegay in dhinaca kale uu ku eedeeyay in heshiiskii Pretoria dalka South Africa uu ka baxay hadaba waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isaga hor imaanayaan ayaa waxa kamid ah kadib markii gobolka Tigreega 40 degmo oo kamid ah ay ciidamada dalka Eritrea ay gudaha u galeen kuwaasi oo muuqanaysa in juuq aysan u dhihin kooxda Tigreega qoomiyad ahaan marka la fiiriyo Tigreega iyo Eritreanku waa dad isleh oo markaasi isir wadaaga taasna waxa ay ka dhigtay in laga aamuso 40 kani degmo ee markaasi Eritrea ay ku soo hantaaqday oo gudaha ay u gashay warku waxa uu taasi ku darayaa in Eritrea ay ku jirto diyaar garowkii ugu weynaa labada dhinac ayaynu fiirin doonaa mid walba waxa uu ku jira diyaar garow weyn oo uu markaasi isugu diyaarinayo dagaal ay fooda istaraan waxaynu ka hormaraynaa dalka Ethiopia diyaaradaha beeqdaariyada iyo waliba akanjiga Turkiga diyaarada ka yimid dhinaca dalka Ruushka oo daroona ah ayay u soo daabushay xukuumadda Addis Ababa gudaha dalkeeda kuwaasi oo qiimo aad u sareeyay ay kaga soo iibsatay dalalka Turkiga iyo dalkaasi Ruushka sidoo kale taangiyo dheereeya ayaa la sheegay inay halkaasi keensatay iyadoo oo Ethiopia ay isku dayayso inay u babac dhigto markani gaaritaanka in ay markaasi awood u yeelato gaaritaanka waxa loogu yeeray dekadaha markaasi dalka Eritrea oo markaasi dagaalkani xuduntiisu ay tahay dalka Eritrea wararka soo baxay waxay sheegayaan in gantaalo balastiga oo aad u dheereeya oo markaasi isaga gudbi kara caasimad walba oo bariga Afrika ku taala waa bariga Afrika caasimad walba oo ku taala gaari kara oo ridda dheer inay ka soo qaadatay dhinaca dalalka Ruushka iyo waliba dalka Iran gantaaladani ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa guuxooda ka dheereeya satellite-yada ayaa waxa lagu sawiray sida wararku ay sheegayaan iyadoo oo gantaaladani lagu rakibay dhul bannaan oo ku yaala dhinaca xuduudda dalka Ethiopia gantaaladani ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa markaasi ay geysan kara ayaa la yiri khasaaro